iyadoo uu caafimaadku ka mid yahay adeegyada baahiyaha asaasiga ah ee muhiimka u ah bulshada ayaa barsaabka gobolka Gabiley isagoo tixgelinaya ahmiyadda uu caafimaadku u leeyahay bulshada ayaa waxa uu saaka kormeer ballaaran ku soo maray isbitaalka guud ee gobolka, isbitaalka dhimirka iyo isbitaalka TB-da ee magaalada madaxda gobolka Gabiley. ujeedada kormeelkani ayaa ahayd xogogal u noqoshada xaaladaha kala duwan ee ku sugan yihiin isbitaaladaasi, waxayna agaasimayaasha kala duwan ee isbitaaladaasi ka warbixiyeen habsami socodka howlaha shaqo. waxaan ku sugannahay isbitaalka guud ee gobolka waxaana soo booqday gudoomiyaha gobolka oo kormeer shaqo ku yimid saaka aroortii hore. alxamdulillah si wanaagsan baan warbixin u siinay waan is wareysanay aad iyo aad baan gudoomiyaha ku mahadcelinaa booqashadiisa. insha Allah waxaan ku rajaynaynaa inay noqoto ugu dambeysay oo booqashooyin fara badan ugu yimaado. waxaan ku rajaynaynaa baahiyaha soo bandhignay in wax badan nagala qaban doono. 2018 maanta waxaa lagu soo booqday isbitaalka TB-da ee Gabiley gudoomiyihii gobolka Gabiley iyo gudoomiye ku-xigeenkii aad baan ugu mahadnaqaynaa inay ogaadaan xaaladda isbitaalka TB-da iyo bukaanka jiifa isla markaana aanu warbixin ka siinay xaaladaha soo wajahaya isbitaalka iyo baahiyaha iyo waxyaabaha u baahan in wax lagala qabto. waxaynu ku sugannahay isbitaalka dhimirka ee Gabiley. isbitaalkan markaan warbixin kooban ka siiyo, isbitaalkan waxaa la furay bishii June 2016 inkeena horyaal isbitaal ahaan. baahida koowaad oo mar walba aynu ka hadalnaa waxa weeyaan iyo qiimahoodu ay qaali yihiin oo aynu si joogto u heli kareenin dadka aynu halkaa dawada ku siinana aynu isgaarsiin karin. si howl aad inoogu adag, dawadu waa baahida koowaad iyo baahida labaad iyo baahida saddexaad. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay barsaabka gobolka Gabiley. runaantii saaka waxaan kormeer ku soo marnay runaantii waxaa moodaa anagoo u kuugalayna xaaladda dhabta ah, xogaa wareysanayna shaqada ka jirta, baahiyaha ka jirta, caqabadaha hortaagan intaba anagoo kormeerayna u kuugalayna ayaanu iska xog wareysanay maamulaha iyo dhakhtarka isbitaalka guud xagga horumarka oo shaybaadho cusub ay samaysteen, farmasiyaashii oo sameeyeen x-ray iyagu yaalla dhammaan adeegii ma garanaysaa dee shaqada waararkii oo dhan ayaan soo wada aragnay. runaantii waxaa ka socota hawle aad iyo aad u wanaagsan oo xagga nadaafadda iyo xagga shaqada intaba aanu ku ammaanayno. runaantii bini'aadam bay caqabado way imaanayaan, caqabadahana waanu ka wada hadalnay, hoos baanu wada hadalnay. waxaan kaloo halkan kusoo booqanay iyaguna isbitaalka xiga oo isbitaalka dhimirka oo isaguna isbitaalka la jaara. waxa weeyaan isbitaalka dhimirka waxaa ku jira ilaa 45 qof baa ku jira. 45 ka qof waxa weeyaan dadkii jilicsanaa iyo dadkooda yaalla oo cunto bilaasha iyo dawo bilaasha intaba lagu siiyay iyagana. sidoo kale iyagana waan isxoog wareysanay baahiyadooda iyo caqabadaha hortaagana iyagana waan wada sheer garaynay. dhammaan waxaan jecelahay inaan isbitaalada soo wada marayna macaafka TB-da rumaantii aan booqdo. insha Allah tacaala waxaan rajaynayaa intan in ka badan iyo in ka khayr badanba in iyadoo wax noo qabsoomeen baahiyahana la daboolay ayaan rajaynayaa inaynu mar dambe kulmi doono. Waayaan la xaaji warbaahinta qaranka magaalada Gabiley.